السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي محكمة دقمة جريبا قدوميها الشيخ جامع الشيخ محمود حسن. waxaynu joognaa meelaha maaragtay maxkamadda loo dhigo rajistarada iyo buugaagta iyo kitaabta maaragtay u yaalaan guri kiraa. meesha maaragtay shaqada aanu ku qabanaana waa meel adugu iska dayacan oo iska burbursana waxba aan la dhigi karin. marka waxaan salaamaynaa maxkamadda sare, wasaaradda cadaaladda, xarunta baarlamaanka, madaxweynaha, xeer ilaaliyaha maaragtay dowladda maaragtay puntland. taas oo dhan waxaan ku salaamaynaa mar labaad salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. meeshan waa maaragtay waa degmada jiriiban. maxkamadeeduna sida la ogyahay waa iska dayacan tahay. dhismo ma leh, qalab ma leh, gaari ma leh, wax maaragtay dadka maaragtay loogu adeego oo maaragtay dhammaystiran ma leh. waa deegaan ballaaran ilaa 64 deegaan weeye. intaasoo dhan maaragtay halkaan bay sharci isu raadsadaan. shalaydan maaragtay waxaanu maaragtay ku dhammaynay meesha tan kiis maaragtay khatar ahaa oo in la isku laayo ay qarka u fuushay. halbaa waxaa isu qabsaday 4 maaragtay qolo ka timid meesha la yidhaahdo guumays, qolo maaragtay ka timid garoowe, qolo ka timid hawdkan maaragtay jiriiba ka sarreeya, qolo maaragtay reer jiriibana. 4taa qolo baa waxay isu qabsadeen hal. haddana maaragtay maxkamadda ayaa maaragtay loo soo gudbiyey, maxkamaddaa la keenay, waanuna dhammaynay ilaahay idankiisa. waxaynu maaragtay inana u xukunnay ninkii maaragtay ka yimid guumays ayaanu u xukunnay markii dambe. sidaasaana maaragtay lagu kala qancay oo maaragtay lagu heshiiyey. ninkaasaa maaragtay kaxaystay. marka maalin kastaba waxaa ka dhaca kiisas maaragtay kuwaasoo kale mucjisooyinka oo kale iyo maaragtay kuwo kasii badan. marka waxaanu codsanaynaa in maaragtay la xoojiyo maxkamadda degmada jiriiban. waxaynu ku shaqaynaa waa maaragtay iyo hawsha inta leeg tahay iyo baaxaddeeda iyo dhulka inta uu leeg yahay iyo kiisaska maaragtay yimaada wax maaragtay isdabooli kara maaha. waa wax maaragtay kala duwan oo farqi weyn baa u dhexeeya. marka sidaasaanu maaragtay ku shaqaynaa duruufta. marka waxaynu codsanaynaa in maaragtay meeshii maaragtay la dhiso, in maaragtay gaari maaragtay aanu helno. marka insha allah waxaanu maaragtay idiin rajaynaynaa ilaahay idankiisa adduun iyo aakhiraba in maaragtay aynu ku guulaysano cadowga iyo maaragtay balaayada. hadday mid gudaha tahay iyo mid bannaanka tahana ilaahay sharkooda naga xijaabo oo naga qabto. cadowgu maaragtay waa tiro badan yahay. nabadda iyo maaragtay horumarka dowladdu maaragtay ay samaysay ayaa shacabkeeduna maaragtay uu waafaqsan yahay, ayaa cadow loogu yahay. marka mid maaragtay dalka gudihiisa jooga, mid soo duulay, mid maaragtay ka baxsan maaragtay puntland, intaba waxaanu leenahay ilaahay maaragtay hanaga qabto, sharkoodana allah ku celiyo ilaahay idankiisa. marka waxaanu codsanaynaa mar labaad in maaragtay la xoojiyo maxkamaddii, in maaragtay gaadiid maaragtay loo sameeyo, in maaragtay guryihii maaragtay la xoojiyo loo dhiso. waa maaragtay waa shay maaragtay muhiima u ah deegaanka weeye. marka khayr baan maaragtay idiin tirjeynayna. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.